magacay waa Muna Sheekh Cabdi Xasan dareenkaygu aad ayuu sareeyaa waa ayo maanta maalin farxadeed oo farxad ballaaran oo la soo koobi karin ayaan maanta shucuurtayda kicisay waa maalin weyn waa maalin halgan waa maalin farxadeed waa maalin aan farxadayada iyo shacabka reer ogaadeen iyo farxadooda aan la soo koobi karin waa maalin ballaaran waxaan ku cabirayaa dareenkayga oo ku xusuustaa inay maanta maxaan ku leeyahay shuhaadadii u shahiiday dalkan isaga ah inay xaq ahayd shahiidkii ay shahiideen iyo maxaan ku raadayay halgankii dheeraa ee gobonimo doonka ahaa ee taariikhda dheer xambaarsanaa ee muddada soo socday dhaxalkiisii inaan maanta xorriyad ku dabaaldegno annagoon cidna ka cabsanaynin annagoo maxaan ku raadayay shucuurtayada cabirayna annagoo qalbiyada iyadu ay saafi isu wada yihiin inaan ku halgamayno shucuur halgameed inaanu maxaan ku muujinayna dareenkayaga shucuur wadaninimo shucuur xambaarsan shacabkayagii iyo kumaadkii ka dhacay dalkan asaga ah xusuus ballaaran u leh dalkan ogaadeenya inuu maanta u tahay inay ku halgamaan ama ay dareenkooda ku cabiraan wadaniyad iyo nabadgelyo iyo maxaan ku raadayay nabadgelyo iyo wadaniyad xambaarsan dareen dheer iyo hiigsi annaga oo mar kastaba ku taamayna inaan helno xorriyad ballaaran oo taam ah oo tii aan u soconnay ah annagoo dareenka iyagu yahay taarikad dheer inay ummaddan reer ogaadeenya ka baxdo gacanta guumaysiga heshana xorriyad madax bannaan oo dalkooda iyo dadkooda ku horumarinayaan oo dareenkooda si dhab maxaan ku dhahay u cabirayaan oo si xorriyadeed u hadlayaan oo halgankoodii dheeraa aynan maaragtay marnaba aan laga beesheegaynin annaga oo rabna inaan ka hoos baxno guumaysiga Itoobiya ee Abasiiniya ee muddada dheer na soo haystay ee dadka iyaga iyo dalkanaga kumaaday ee maatiyo caruur midna aan nagu reebin annagoo maanta maxaan ku raadayay waxaanu ku iloobaynaa shuhaadadayadii iyo raggayaga qaaliga ee u soo shahiiday dalkan waxaan ku iloobaynaa maanta farxadan iyo nabadgelyadan ay soo gaarsiiyeen waxaanan rajaynaynaa tantu ka ballaaran inaan gaadhno inaan tanta ku ballaaran gaadhno inaanu madax bannaani helno inaanu gooni goosad helno inay dadkani noqdaan dad ka tashanaya iyagu aayahooda dad iyagu ka tashanaya aayahooda si madax bannaan ooga tashanaya inay dadkani noqdaan ayaan insha Allah ku hormarinaynaa kuna guwaabinaynaa gaarsiinaynaa waan u taagnaanaynaa xorriyaddan intuu dalkani ka madax bannaanaanayo guumaystaha Abasiiniya intuu dalkani ka madax bannaanaanayo dad taagan oo halgamayaan nahay halgankii lama dhigin qorigii baa la dhigay laakiin halgankii iyo taariikhdiisu way socdaan waxaan ku halgamaynaa qalin baan ku halgamaynaa waxaanu mar walbaba aanu iska ilaalinaynaa golduleelada iyo goobaha uu gumaysigu naga soo galayo ayaan iska ilaalinaynaa dad midaysan baan nahay cod midaysan iyo cudud midaysan iyo aqli midaysan iyo maal iyo maskax baan ku halgamaynaa qalin baan ku halgamaynaa waan madax banaynaynaa dadka iyaga waa ay ilaahay ma uumin ummad ku waardo dulmigan mar baan ka hoos baxaynaa waan rajaynaynaa insha Allah biidnillaahi raxmaan marka shacabka reer Ogaadenya waxaan kula dardaarmayaa waxaad noqotaan shacab midaysan noqda shacab midaysan nina waxba kama qaado guumaysti waxba kama qaado gacmaha in la isqabsado in xorriyadda loo diyaar garoobo way dhalanaysaa si dhib yar ay xorriyaddu ku dhalanaysaa insha Allah oo degdeg ah hal la diyaar garoobo ayaan leeyahay cod midaysan iyo cudud midaysan iyo aqli midaysan iyo maskax midaysan hal lagu halgamo iyo qalbi saliim oo saafi ah ayaa intaas ku soo gabagabeynaa waraysiga soo dhawo kaarda warka Ogaadenya aad ku bilaabaya waan dhawahay walaal magacaygu Cabdifataax Maxamed Xuseen ayaa la yiraahdaa maanta farxadayda lama soo koobi karo aad iyo aad baan u faraxsanahay aad iyo aad baan u jibaysanahay waxaan ku hadlaa ma garanayo maadaama dilada caasimadii Jigjiga aan ku qabsanay waxaan ugu mahadnaqaynaa Ilaahay jaaniskan inoo soo gaarsiiyay fursadan inoo siiyay ayaan ugu mahadnaqaynaa hadana halka inaan ka sii wadno ilaa iyo ma garanaysaa madhal insha Allah saasan Ilaahay ka rajaynaynaa aad iyo aad baan faraxsanahay okay ba dareenkaaga maxaad ka cabiraysaa maanta intaan laakiin ma ka soo qayb gashay waqtiyo hore inta magaalada Jigjiga mise meel kale ka qayb gashay ma walaal meel kale mooyaan Jigjiga wali kaga soo qayb galin maanta ay horeysay maanta ku horeysay adoo si xor ah wadankaaga anoo si xor ah walaal Jigjiga ma garanaysaa aan cidna aan ka cabsanaynin
farxadayda lama soo koobi karo baan ku صح أبغى ما ما أنت فسق سنة جديدة سنة حوارات وقاعدين الدرين كاجي شو صار عبري اللهم صل على سيدنا محمد مقعي عبد الرزاق حسن حسين أنا أقول هاي شعورته ما أنت لما سو كوبي كرا بقول كيف بقول حي موقته هذي ديلة هنا الحرية دي أنقرن باي موقته حتكون كران كرتا شعبية درير وقاعدين يا أما شعبية الصوماليات الدولتين الصومالية دي داسكونال sida ay u soo buuxdhaafiyeen iska daa hoolkiina la siiyay yaraaye wallahi daaradii ba qaadi weyday qaryandoodan ilaa heer waxa la gaadhay maxaan ku dhaayay sheegay ilaa iyo maxaan ku dhaayay dadku ay baawurtii korkada la fuulo oo guriyo korkada la fuulo oo meel kasta la buuxiyo taas waxa cadeyn karta marka oo ana la doorka ay ka ciyaarayso maanta siyaasadda Geeska Afrika iyo gumeystaha madow waxa weeye dargiga ah iyo gumeysi kalkaalkaba sida ay maanta maxaan ku dhahay ay ugu dhufatay darbaxada mugi iyo xuduud leh ee siyaasadeed taas oo halbeegeedu u yahay inaan ay ka tashi shacabkan la gaarsiiyo oo NLF ma aha dhadhaman raac iyo macaan jecel oo NLF waa xorriyad taama ay shacabkan u horseedaysaa una hor socotaa oo hormuudka ummadda waa hooyadii halganka waxaad ku garan kartaa in hooyada halganka tahay 3 halgan ama 5 halgan ama 6 halgan soo dabajo ilaa Axmed Guri ka soo bilowsay maxaa Cabdul Xasan ku xigsi Nasrullahi Soomaali galbeed iyo maanta waana la gundi ku tahay qoor isku dhibo halganku hasa ahaatee marnaba kama tanaasulna ay ka tashanay iyo xorriyada ummadda taamka idin la gaarsiiyay 24 saac iyo maalin iyo habeen baan soo taagnayn waxaan halkan waxaan ku dhahay uga ducaynaya naftooreeyalka qaariga naftooda kuwa ay u shiiday ummadooda waxaan halkan ka salaamayaa dhammaan xubnaha jooxo meel ka soo joogan iyo wakaalada oona waxaan baaq u dirayaa dhammaan shacbiyada reer Soomaaliyeed meel ka soo ku nooyeen dafaac caalamka shanta Soomaaliyeed iyo Somali State inta ku noolba iyo shacbiyada reer ogaadeenaya ee qadiyadooda jecel midnimadii halgankooda mar walba u soo taagnaa shalay gumeystaha waxa weeye shacbiyada oon iyo ciidanka iskaashanayo jooxo ayuu gumeystu isku day inuu ka farmaroojiyo maxaan shacbiyadii marnaba ma internationalna awood ka soo la sheegtay iyo si kasta oo maxaan ku dhahay baawr iyo awood iyo maxaan ku dhahay nabis iyo xuduud ka soo loo sheegto shacbiyadu halbeegii waa halkeedii waxaan ku dhahay xorriyadii sidii bay u raadinaysaa sidii bay u jecel yihiin waxaad ku garan kartaa 1 milyan oo qof oo maanta cid riyaal ku bixisay aan jirin cid taxi ka soo bixisay aan jirin cid dhar u buufisay aan jirin oo isku soo sharaxay oo isku halka u imaaday baa ku cadeyn kartaa inuu halganku dhab yahay oo xaq yahay oo cadaalad yahay oo mir dhalay waxaad ku garan kartaa shacbiyada reer ogaadeen meel ka soo joogan sida ay ugu dhiirayeen inay xor noqdaan ama xornimo u raadinayaan waxa maanta Ilaahay maadiyay in intanoo Soomaaliyeed oo cidna aan ul ku soo kaxin cidna in ciidan ku soo bixinin cidna microphone inta qaadateen magaalada Jigjiga la dhaxmarin in maanta Ilaahay isku keenay taas Ilaahay maadiya wallahi shucuurtay ma soo koobi karo waxaan la halganku midho dhalay waxaan ku dhahay Sultan Sarar hees kulli way koreysay wuxuu yiri dadka kaanoo dalku wuxuu xoroobe marka waxa weeye maanta waxaad ku garan kartaa alla dal xiistaan leh DDS Allah imaado qurbo joogta reer waadeen yahay maadan shacabweynaha Soomaaliyeedna hana soo booqdaan quruxda u shacabkana uu leeyahay maanta kulli waxaan qiyaasaa in media iyo meel kasta iyo social media in maanta laga qiyaasanayo waxaana hoggaanka noo hayo oo maxaan ku dhahay madaace ma soo noqde waxa weeye maxaan ku dhahay halgamaa sare naftu mu'assas ah Cabdiraxmaan Sheekh Maadi Maadey ma isliinin shanta Soomaali maanta dil soo ruriyo nin la aragtay waa la arkay laakiin nin ka aragtay dheer waa la arkay mali aniga marka waxa weeye dhuxulayaasha iyo afarta wadagabiga ah maxaan ku dhahay buurta saaran hatta nasuulan baan leeyahay shacbiyadana meel fiican ku hogaamiyaan shacbiyadana lama jara habaabin baan leeyahay wadagabigu ha isku tashado inta waa baaqaya waxa kale toon aad uga xumahay gudoomiyaha ururka dhalinyarta ardada ogaadeenaya halgama Umar Sheekh Cabdullaahi inuu maanta xabsiga ku jiro asagoo oo maxaan ku dhahay waxaana bilaa isku soo baxay aad baan uga xumahay waxaana leeyahay wadagabigu aan la xisaabtamaynaa iyo waxa weeye dhuxulayaasha iyo dadka isku sheegay inay dawlad yihiin waan la xisaabtamaynaa wallahi billahi tallahi waan la xisaabtamaynaa waxa ay maleegayaan wax ku xun oo maleegayna haday wada tubta saxda ku soo aadi waayeen assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh assalaamu calaykum guul iyo gobonimo
waan ku dhowahay hooyo magacayga waxaa la yidhaha Aamina Saahid Cabdi baa la yidhaahdaa waxaan aad iigu sharaf iyo hambalyo iyo guubaababa ah munaasabadeena quruxda badan ee sida maxaan ku idhaahdaa dhaxalgalka ah ee aan la soo koobaynin inoogu dhacday baan horta ilaahay baan ugu mahadinaynaa wax la xuso Allah uu weyn ilaahay baa inagu simay ilaahay baa ina gaarsiiyey ilaahay waxaan ka baryaynaa guul iyo gobonimo dhammaanteen cidi caaradee dhulkeena gumaysiga ugama tanaasulayno ugamana hadhayno guul iyo gobonimo aan leenahay dhammaanteen gacmahan isqabsanaynaa rag iyo dumar gudoomiyaheena iyo ururkeena iyo jaaliyadeena daliya dibadba joogta ha guulaysataan leeyahay wakaaladeenna oonana ha guulaysta idinkuna guulaysta assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu